boqorkii ifkow eebow kii aakhirow eebow axad lagu masaami jiro eebow huurnay hawaasnay hasil yaraanay haash dhaboodi hodon dhawiilow humaan ifaayow mahna hoobto ilaahay wax mamuuga mawla maalig allow maalikul mulki waaye usagaaman dharkeeno ilaahow ixsaan badanow arxamur raaximiin la hubow addoonkaagii yaan ahay abaalkuuma gudi karo awoodana adaa iska leh caadilow ilaahow carra dhammaan la ila roge meelaan ku ceyntaan lahayne icaymi adaa casiise assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu soo dhawaada saaxiibayaal waa cabdimajid cali maxamed barta aad naga daawanaysana waa dhaay maale waxaan filaa inaad subscribe saartay youtube-ka facebook aad follow dhahday iyo tiktok-gaba saan hore ugu ballansaneen maaragtay waxaan halkan iskula lafa guri doonaa sugaanta soomaalida iyo waxa ay ka tiri nolosha bani aadamka waxaan u kala qaadi doonaa sugaanta hadba intii isku jaada ama intii isku bax ah ayaan u kala qaadi doonaa inagoo ku horeynayna diinta islaamka iyo sugaanta soomaalida maadaama aan nahay ummad muslima waa inaan fiirinaa waxa ay sugaan yahanadeenu ka dhaheen diinteena xaniifka ah ee muslimka mawduuca laftiga isagaa badweyn ah waxaan maanta isdul taagi doonaa intii ay afmaalka soomaaliyeed ka dhaheen alla weyne subxaanahu watacaala kii ka hadlay ammaantiisa intii sugaani lagu baryey iyo maaragtay sugaanta loogaga hadlay magacyadiisa iyo sifaadkiisa waxaan soo qaadan doonaa dhowrka maanseen isleenahay waa mudanka sugaanta oo safka hore kaga jira inta maansa ee lagu ammaanay alla weyne subxaanahu watacaala waxaan ku horeyn doonaa maanse uu leeyahay abwaankii weynaa cabdiqaadir xirsi siyaad yamyam ilaahay ha u naxariistee oo ugu magac daray tawxiid abwaanku maansadan waxa uu kaga hadlayaa ilaahay magacyadiisa weynaantiisa iyo ma aragtay adduunyadan lahaanshaha ilaahay uu leeyahay ambiyadii uu soo diray waxa ay kala kulmeen qoomkii loo soo diray sidoo kale wuxuu abwaanka maansadan ma aragtay ku sharaxayaa ibni aadinimada iyo isdhuldhigidda iyo tawaaduciisa halka uu gaarsiisan yahay waxaan kasoo qaadan doonaa inta hore ararta ah oo ilaahay ku ammaanayo taas ayaa inagaga filan in aan ku ogaano in sugaanyahanadeenu maansooyinkoodu ayna ahayn keliya madadaalo iyo cardaalnimo oo ay jiraan maansooyin islaamnimada iyo ma aragtay dadka nolosha lagu baraayo abwaanku wuxuu leeyahay bismillaahi eebow arraxmaani eebow arraxiimi eebow subxaana allah eebow alxamdulilah eebow allahu akbar eebow adduunyada dhammaanteed ifka kii dhisayow eebow axad keligii eebow uumiyaha qalqow eebow kii aan la dhalin eebow kaan hooyo iyo adeeriyo aabba qabinow eebow boqorkii ifkow eebow kii aakhirow eebow axad lagu masaami jiro eebow waxaan ku xigsiin doonaa maanse uu leeyahay abwaankii weynaa maxamed gacal xaayow abwaanku wuxuu leeyahay rabbi iyo rasuulnimaan rumayn xaaja uma raydo ramadaanka sooma waa waajib nagu rarane raqiib iyo catiid waxay qoraan waa run iyo beene rafiiq aan la arag buu rabbigeen soo adeegsaday sidoo kale fari kama qodno sugaanyahanada soomaaliyeed ee ka hadlay wanaagga diinta iyo weyneynta ilaahay waa kan cumar aadan dugsiye iskii keligii waarow abidkii jirow allahayow adaa leh eebbahayow adaa leh awood iyo xoogba adaa leh itaalaad kufaanta adaa leh adduunka dhammaantii adaa leh arsaaqda iyo khayrka adaa leh ayaanta qiyaamo adaa leh abaalmarinteeda adigaa leh sidoo kale abwaan cabdili isaagow ayaa isna ku maansooday maanso duco ah oo alle ku baryey waxaa la sheegaa in abwaanku xilli kulul oo biyo la-aan bahasan ay jirto ay marti kusoo beegantay isna wuxuu ku cararay allihiisa wuxuu ku baryey maanso aad taariikhda u gashay taasoo ma aragtay abwaanku u isticmaalay farshaxan la yaab leh isagoo ilaahay ku ammaanay magacyadiisa ilaahay ku baryey asmaa'ul xusnaa isagoo kasoo qaatay 3 magac oo ah alqawiyu alghaniyu alghafuuru abwaanku wuxuu leeyahay huurnay hawaasnay hasil yaraanay haash dhaboodi hodon dhawiilow humaan ifaayow mahna hoobto dadkii sheekada ka sheekay waxa ay sheegeen in ilaahay uu ka aqbalay abwaanka ducadiisii beeshaasi maalintaasi roob hele sidoo kale abwaan marka xaaji banaadir mar uu ka hadlayay golo ay Soomaali isugu timid isagoo xasuusinaya alla weyne subxaanahu wa ta'ala in awood oo dhami ay asaga xaqiisa ahaatay oo aadanaha uu iska tabariyay
abwaanka isagoo Soomaali baraarujinaya wuxuu yidhi ilaahay wax ma mooga mawla maalig allow maalikul mulki waaye isagaa man dharkeeno marna keeno kuleelka almaalu maalullah wanaxnu cabiidullah wama alxayaatu dunya ilaa mataacu lguruur. sidoo kale way fara badan yihiin abwaanada ka hadlay ilaahay weynayntiisa. waxaa ka mid ah abshir nuur faarax bacadle ilaahay ha u naxariistee maanso oo ahayd inta la sheego tii ugu dambeysay uu tiriyo. abwaanka maansadan waxa uu kaga hadlay aadanaha tabaryaridiisa iyo geeridiisa iyo geerida ka bacdi wax qabriga lagala kulmo, isagoo intaa caddeeyey inuusan aqoon iyo raganimo isaga uu leeyahay uusan ku ogaane iimaanka uu rumeeyey keliyata uu ku ogaaday. ayadan waxaan kasoo qaadan doonaa in inagu filan oo aan ku garanno abshir bacadle mu'minnimadiisii iyo intii uu sugaanta kaga tiriyey wanaagga diinta iyo weynaynta ilaahay. abwaanku wuxuu leeyahay ilaahow ixsaan badanow arxamuraaximiin la hubow addoonkaagii yaan ahay abaalkuuma gudi karo awooddana adaa iska leh abuurkaygii koowaad awalkiiyo bidaayada ilaa uurkii hooyaday adigay arsuqi jiray addoommana wax kama helin ixsaan kala sugi maa aakhirana kasii daran. ilaahay u naxariistay abwaanka maansidaasi waxay ahayd tii ugu dambeysay uu tiriyey. sidoo kale abwaan maxamuud axmed yaasiin dheeg ilaahay cimrigiisa ha u barakeeyey dembigiisana ha dhaafe isagana mar uu ka hadlayay ibni aadamka iyo waxay gacmahooda ku geystaan marka ay ka toobad keenaan siduu ilaahay ula diyaar yahay dembi dhaafka iyo naxariista. abwaan dheeg wuxuu leeyahay wuxuu daa-inkeen yidhi dawadoodu waxay tahay meeshu dabka kaga baxay kolka ay dareemaan dib ii soo xusuustaan dembi dhaafahaan ahay wixii ugu darraan jiray nabadda ugu doorshee naxariis ku deeqee miyaa hoosba loo dayey. sidoo kale waxaa jira abwaan weyn oo ay Soomaalidu aad u taqaano ilaahay ha u naxariistee abwaan cabdi iidaan faarax ayaa mar ay dowladda xirtay ilaahay u qeyla dhaansaday. abwaanku wuxuu ilaahay ku baryey asmaa'ul xusna ilaahay magacyadiisa halkaas sir baa ku jirta waatan hore u soo sheegnay. abwaan cabdili isaagow inuu isna ilaahay ku baryey magacyadiisa asmaa'ul xusna ilaahayna uu ka aqbalay. waxaa la sheegay in cabdi iidaan faarax uu maansidan markii uu tiriyey kadib xarigii laga sii daayey. cabdi iidaan faarax wuxuu leeyahay ilaaha aan baahanay loo baahan yahay boqorkayow heedhe ilaaha baaqiga noqdow boqorkayow heedhe ilaaha deeqsinimo loo baxshow boqorkayow heedhe ilaaha waaxidnimo loo bartow boqorkayow heedhe ilaahaan xaqa lagu beeninow boqorkayow heedhe ilaahaan dunida baaraxa qalqayow boqorkayow heedhe ilaaha inuu burburin sheegayow boqorkayow heedhe baabaca addoon baan dhigtayee boqorkayow heedhe boqolkaaga magac ee mid kala yaan baaqa maqashiine allahayow xariga sahal iiga bixi kuu baryoo tamaye. waxaa la sheegaa in abwaanku ilaahay ducadaasi ka aqbalay xarigiina laga sii daayey. waa iska xaal adduune abwaanka mar kale ayaa lasoo xiray weliba isagoo loo soo xiray kiis dil ah oo isagu una geysan. markii jeelka la keenay ayaa abwaanku ilaa meel buu wax ku ogyahay waa nin mu'min ah ilaahiisa rumaysane wuxuu sidoo kale ku cararay ilaahay subxaanahu watacaala weliba isagoo maansada dhexdeeda ku xusay inuu ilaahay hore u baryey ducadiisana uu ka aqbalay misna uusan ka quursanayn isagoo sheegay in ilaahay subxaanahu watacaala qasnadihiisa ayna dhammaan. sidoo kale markuu maansadaasi tiriyey kadib ilaahay waa ka aqbalay haddana mar labaad ayaa xarigga laga sii daayey. wuxuu abwaanku maansadaasi damban uu ku leeyahay mar wax bixiye aadmigaa lagu maleeyaaye adigaan qasnadahaagu maran mahada buuxaane adiguu ku soo magan galaa ruux madluun ihiye mar haddii maciinow la yidhi meel kalaan jirine madhabtiiyo qur-aankaan bartiyo maxamed jaahiisa iyo magaca weyne carshiga yaan miskaansadeeye haddana sacbadeydii marnaa meesha soo dhigaye maantana ilaahow ifuro kuu martaan ahaye. xisaab laguma koobi karo daawadayaal inta maanso ee ilaahay lagu ammaanay ama lagu sheegay ibni aadamka daciifnimadiisa. waxaad arkaysaa markaad u fiirsato dhammaan sugaanta Soomaalida inaad ka helido maansooyin tiro badan oo lagu sheegayo weynaynta ilaahay iyo wanaagga diinta. waxaa jira sugaanta qaar ka mid ah heesaha loo yaqaano ayaa waxaa ku jira meelaha qaar oo sidan oo kale ilaahay loogu xusay. waxaa jira hees ka mid ah codadka qaraamka ah inta badan lagu qaado qaraamka rogaal ayaa waxay leedahay weynow adigaan wax lagaa waayi jirine wanaag ii xigsii waxyeeladaye. sidoo kale shankaroon axmed yuusuf sagal heesay qaado iyana waxay leedahay noloshayda aayaha ka sokow ilaahay adigaa mas-uulka ahay.
si toose ninkii ay ula jeeday warka umay marsiine waxa ay sheegtay in iyada iyo ninkaaba ilaahay leeyahay nolosheedana mas-uuliyadda koowaad ilaahay uma aragtay leeyahay addoon alla ay tahay noloshayda aayaha ka sokow ilaahay adigaa mas-uulka ahay saasoo kale waxaad arkaysaa sida cali suura maro isna ka cataabayay jacayl naftiisa daashaday ayaa wuxuu leeyahay caadilow ilaahow cara dhammaan la ila roge meelaan ku ceyntaan lahayne iyo caymi adaa casiise intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa maanta muuqaalkeenii wixii faallo ah ama talo ah aad noo haysaan waxaad nagula wadaagtaan halkaa faallada hoose ah maanse allaale tii aad ka hesheen aad rabtaan in lasoo dhammaystirana waad soo codsan kartaan hal iyo laba tii loo bato iyana waxaan usoo duubi doonaa si dhammaystiran aad baad umahadsan